muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa qodobka 8aad ee design principle oo ah function waa tixgelinta objectiga qayb ka mida shaqo horey loo qabtay iyo sida design wanaagsan loo soo bandhigo loona fuliyo si loo helo bardhamaadka. muhiimadda ama hadafka ugu weyn ee designka waa inuu gudbiyaa fariin uuna noqdaa wax cajiib ah, laakiin waxaa si la mid ah muhiim u ah in aragtida saxda ah la sameeyo si loo gaaro natiijada saxda ah ee loogu talagalay. horaantii imtixaanahan waxaan sheegay in aan aaminsanahay graphic designka in uu yahay midnimada laba xog iska soo horjeedo, muujinta artistic iyo practical la taaban karo. markaad tahay creative designer, labada xog mar walba maskaxdaada ayay isku khilaafi doonaan. marka aad awooddo labadan xog inaad si wadajir ah u wada socdaan, kadib waxaad abuuri kartaa visual communication weyn. marka aan abuurno qayb ka mida graphic designka, inta badan waxaa jiri doono shuruud gaar ah taas oo loo baahan yahay in la fuliyo iyadoo ku xiran tahay hadba culayska hawsha inta uu la egyahay. waxaa jiri kara hal ama dhowr shuruudood, waxa uuna shuruudahaas ka helaa macmiilka qaab qoraal ahaan ka hor inta uusan nashqadin. waxa uuna shuruudahaas ka helayaa qofka designerka ah macmiilka qaab qoraal ahaan ama mid hadal ah ka hor inta uusan nashqadeynta bilaabin. qayb kasta oo shaqo ah waxaa jiro macluumaad muhiim ah oo u baahan in la fahmo. tani waxay xaqiijinaysaa ama sahlaysaa designerka in uu dhigo booska ugu habboon si loo soo saaro hal abuur sax ah oo xalkiisa wata. waxyaabaha macmiilka looga baahan yahay in uu caddeeyo waxaa ka mid ah overview. waa in uu soo bandhigaa fikradda mashruuca iyo waxa dhabta ah loogu talagalay. waa inuu si cad u iftiimiyaa audience ama targetka uu rabo ama dadka uu target gareynayo uu rabo in macmiilka u noqdaan, uuna doonayo in uu baahiyahooda xaliyo iyo macluumaad kastaba oo muhiim ah in la ogaado. shuruudaha ama requirementiga ayaa u qeexi doono waxa looga baahan yahay si hal mar looga qaado xogta loo isticmaali lahaa digitalka iyo printerska guud. natiijada la rabo waa in macmiilka uu sheegaa waxa uu rajeynaya in uu gaaro marka la isticmaalayo graphic design, sida uu rabo in ay ka falceliyaan dadka shaqada designka la sameeyey iyo sida ay u fikirayaan. waxaa laga yaabaa in uu soo jeediyo muuqaal ahaan sida uu rabo, midab ahaan, kuwa la isticmaalayo iyo wixii la mida. briefka ama dokumentigan wuxuu noqon doonaa hal abuur xadidan ama fasaxaya. briefkan waxa uu hagaajinayaa caqabadaha iyo xuduudaha celin lahaa designerka si uu u soo saaro hal abuurka saxda ah ee ku habboonaa. xogtaas waxay noqon doontaa mid samaysa hal abuurka designerka. haddaba haddii designerka uu baalmaro waxa macmiilka uu brief ahaan ama dokumenti ahaan uu u siiyey, waxa uu la mid yahay isagoo hareer maray function. muhiimaddaas ayuu leeyahay functionka. marka la waafajiyo wixii macmiilka inoo sheegay, wax wanaagsan ayaa inoo soo baxaya. haddaba isku day inaad samayso wax wanaagsan oo kala leh mudnaan ama kala horeysiin. middan waa meesha laga keenay form iyo function. kuwa bilowga ah si fudud waxay iskaga qaataan practical designinka in aysanba wanaagsanayn ama la xiiseynin. si kastaba ha ahaatee, designerka professionalka ah waa in uu dabaqaa functionka. kala horeysiinta waa in had iyo jeer loo fiirshaa functionka, sida waxa u wanaagsan yihiin inta lagu guda jiro researchka iyo designka. waxa muhiim ah ee la rabo in la fahmo waa requirementska iyo target audience-ga. sidoo kale tixgelinta luqadda, midabka iyo layoutka ayaa kuu suuragelinaya in aad dhiirigeliso natiijada saxda ah. sharci ahaan, mar kastaba isweydii why ama sababtee ayaa u isticmaalaysaa midabkaas, sababtee ayaa u isticmaalaysaa fartaas, sababtee ayaa isugu hagaajinaysaa habkan, sababtee ayaa u isticmaalaysaa shapekan iyo wixii la mida. had iyo jeer isweydii sabab, yani wax kasta sabab
kadib waxaa kuu soo bixi doona ugu dambeyn wax qurux badan oo dhinac kasta ka diyaarsan. waa in qofka had iyo jeer isku dayaa inuu iska ilaaliyo inuu qaato go'aan aan loo meeldayn. haddii la dareemo tani waxay hoos u dhigi kartaa qayb ka mid ah shaqadada. si kastaba ha ahaato, dulmar ku samey creative briefka ama dokumentiga uu macmiilka kaaga tagay. wax kastaba oo la qabtay sidoo kalena maskaxda ku haay in aad ku dabaqday function. halkan ha inoogu joogo qodobka 8aad ee design principle oo ah qodobkii ugu dambeeyay. waxaa ilaahay mahadi ah in aan dhammaynay kooraska hagaha bilowga naqshadaynta. waa inoo muuqaalka xiga iyo shaacinta waxaa xigi doono insha Allah. mahadsanidin.